هاي أصحابته welcome هذا بهي نكذا كوجعلاد وبلا كوجعلاتي mar walba xaaskiisa uu jecel rabo inuu u sheegtana jug ayuu u sheegtaa kadibna fiyoora ayuu u daba mariyaa waana ku qasbantahay inay aqbasho jaceylkaas fiyooraas la socdo qalka jiifka markay tagaan bahlnimadiisa ayaa loo soo baxaa mar alaala markuu garaacana katiinad ayuu abaalmarin uga dhig subax kasta 5 subaxnimo iyo 30 daqiiqo waxa waajib ku ah inay quraacda u diyaariso ayadoo daqiiqad ka hormarin kana daba mari xataa cabitaanka markay u keentay heerkulkiisa ayuu ku jeegaraynaya markuu jeegaraynaya haysu way jaraynaysaa mar walba la joogana waxay ku qasbantahay inay dhalacadayso iskana dhigto xaas faraxsan laakiin markuu maqan yahay qol ay isku xirtaa kaligeed iskana oysaa balse markaan sheekada bilowgeeda ay dib ugu noqonaynaa shaqada filimkeena waxay ku bilaabanaysaa gabadhan lagu magacaabo Ensu waxay ka shaqaysaa dukaan heer sare ah ayadoo u qaabilsan qaybta iibinta alaabaha waana gabar hamis sare leh oo doonaysa inay heer sare gaarto maalmaha kamid ah waxa uu maamay nin la yiraahdo Jin kaasoo ah nin hantiila ay yaqaan ganacsatada waaweynka kadibna saacad ayuu u xiraysaa iyadoo ku taabanayso markaas ayuu asigu lacagta bixin iskala tagayaa kadibna Ensu ayaa isku xil saaraysa kadibna raadinaysa wayna soo hiraysaa markay kulmaan waxay ka codsanaysaa inuu lacag saacad soo celiyo ama lacagta ay u bixiyo wayna ka diidaysaa ilaa uu saacad soo celiyo ama lacagteeda uu bixiyo inay ka soo tagto mustajinna aad ayuu u helayaa gabadhan sidii shaqada daacad ugu tahay howlkarna u tahay markaas ayuu wuxuu ka codsanayaa in shaqadan ka soo tagto kadibna asiga ay la shaqayso laakiin way ka diidaysaa arrinkaasi ugu dambeyn asigoo la kaftamayo wuxuu ku leeyahay marmar ma dhacda xanaaqa jirkaada ku jiro iyo bahalnimadaada inaad bannaanka soo dhigto waxaana halkan nooga muuqdo labadan xiriirkood inuu halkan ka dhumaanaynin maalinta xigtay Ensu waa la wacaya waxaana wacay custom VIP ah lana Hayon kadibna waxay u tagaysaa qolka dharka la isku baroobeeyo waxayna ka codsanaysaa sigeerka inuu xirto markay isku daydo inay u xirtay waxay ku arkaysaa inay yeelan dhaawacyo aad u tiro badan duudkeeda markaas ay iyadoo waxba dhihin u xiraysaa Hayon gabadha markay wacayso waxay ka damacsaneed inay caawiso isla markaas ay waxay ku leedahay Ensu waxa ku maleynaa inay gabdhahan kale ka duwan tahay laakiin waxba kama duunid isla markaas ay ninkeeda goobta soo gaarayo Hayon markaan aad ay u murugaysan tahay inay biyo ayaa ku jiro laakiin cid caawinaysa ma jirto walaga wada aamusaya ninkeeda bahalka ayaan halka ka wadaayo isla markaas dukaanka ay wuxuu u dhigayaa abaalmarin inuu alaab badan ka iibsado maadaama afaarihiisa ay ka aamuseen Ensu markaan hadaladii Ayun ayaa qalbigeeda dhaawacayo maadaama dhibaatooyinkan camal iyada lafteeda ay la soo kortay isla markaas Ensu waxay u laabanaysaa guriga hooyadeeda iyadoo qorsheynaysa hooyadeeda dhalashadeeda inay ka qayb gasho waxaana halkan ka dareemayna Ensu sidii aabaheed u fiirinayso inay hooyadeed ka walwalsan tahay habeenkaas Ensu markay maqasho aabaheeda hooyadeed qaraaca isla markaas uu ordaysa inay u tagaysaa iyadoo ka celinaysa kun xanaaqaysa aabaheeda waxayna u sheegaysaa markay dugsiga sare dhiganaysa inay isku daydo hooyadeed inay isdisho maadaama jugta aabaheed ay u adkaysan weysay Ensu aabaheedna iyada iyo walaalkeed jiriska weligiis ma taabanin hooyadeed kaliya ayuu qaraaci jiray waxayna la soo kortay inay isku qaadato inay fulay tahay maadaama hooyadeed ay caawin weysay waxayna aad ugu dadaali jirtay walaalkeed in Hayug inuu sheekadan dham ogaanin niyadna u la korin laakiin sheekada dham hadda ayuu ogaaday laakiin sheekada dham waxay isbedelaysaa markay Ensu soo baxday si ay u soo booqato saaxiibteeda adduunka u jecleed Haysu kadibna ay aragtay dhibaatooyinka loo geystay iyo dhaawacyada ku yaalo Haysu ninkeeda banaanka markuu joogo waa nin aad u wanaagsan laakiin gurigiisa markuu joogo waa wuxuush marka ma arkayna Ensu soo kacayso oo la joogto Mr. Jin ayaan u sheegay inay aad u cabtay kadibna ay soo waceen qolada baarka isla markaas wuxuu diinay qofka la qaraacay isagoo ku dhahay marka ku soo waday ayaa qofka hadlaysay inta ila fadhiday Mr. Jin ayaa waxay ka arkaysaa TV-ga in gabadhii macmiilkeeda VIP-ga ahayd Hayon ay dhimatay iyadoo gaariga ninkeeda isku dhigtay Ensu isla markaas sheekadaas ka argagaxaysaa isla markaas waxay bilaabaysaa hooyadeed inay wacdo walaalkeed ayaan ka qabanay way fiican tahay ku leeyahay sidoo kale isla markii Haysu ay wacaysaa laakiin taleefankeeda cidna ka qabamayso isla markii soo kacday Mr. Jin wuxuu ku leeyahay hadaba nagaha masaakiinta maxay isku dilaan may ayaga dilaan nimanka istubidiinta isna u galayo kuwaas ayaa dhimashada mudane isla markaas Ensu waxay soo gaaraysaa Haysu gurigeeda waxayna u imaanaysaa iyadoo balkoonka saaran doonaysa in meesha iska tuurto oo ay nafsadooda goyso balse markii way ka gaaraysaa inay soo qabanaysaa saaxiibteeda Ensu ayaa isla markii ku dhahaysa maxaad dacwooyso wax uu sameey weysay halka Haysu ugu jawaabayso wax walba inay isku daydo inay sameeyso hadaba sidee wax ugu dhaceen gabadhaani waxaan arkaynaa maalin inay u soo baxday inay Ensu la kulanto kadibna dukaanka ay ka shaqeynaysa intay timaaday soo wacayso una sheegayso maanta inay la kulmi karin qorsheedu wuxuu ahaa saaxiibteeda markii ugu dambeysay in wajigeeda aragto maadaama ay qorsheynaysa inay ka baxsato ninkeeda una baxsato xagga iyo Amerika isla markii alaboorka tagtay diyaarada raacis tiraaho ayaa ninkeeda soo wacay kadibna fiidiyoo ay soo dirayaa asigoo ciqaabaya hooyadeed maskaxda ka xanuunsaneed waxaana ku amrayaa 2 saac gudaheed inay ku timaado dikala hooyadeed inay u dhamaan doonto isla markii guriga soo gaartay waxay arkaysaa bisadeeda oo geeriyootay asigana uu dilay ciqaab asigoo uu dhigaayo markiiba guriga ayuu soo gaarayaa musiga ayuu sheeganaya wuxuu bilaabayaa inuu garaaco ninkan Haysu wuxuu ka doonayaa kaliya wuxuu doonayaa asiga inay samayso wax walba sameynaysan waqti ayuu u yeelay waqtigan in ilaaliso ayuu ka doonayaa waxayna mar walba qarsataa daawada isku daaweynaysa maadaama jug badan ay ku dhacdo intuu guriga ka maqan yahay qolka maqaasiinka iyo iska gashaa qolka iyadoo ku jirta ayaan waxaan arkaynaa inay soo xasuusanayso waqtiyada ay diyaarin jirtay buugaagta illustratorka carruurta iyo sidii ugu faraxsaneed halka waqti xaadirka nolol xum ay ku jirto isla markaas ay waxay ogaanaysaa waqtiga dhamaanayo lana dhaaf waqtiga cashada ninkeeda u diyaarin jirtay markaas iyadoo boobsiis dhahaysa ay gacmaha iska gubaysaa halka ninkeeda uu goleen xataa shil inay ku dhaawacanto haday wax soo gaaraan waa inay xagiis ka imaadaan markaas ay wuxuu go'aansanayaa inuu guriga CCTV camera ku xeero
wuuna ku xirayaa si uu dhaqdhaqaaqeeda ula socdo waxyaabaha la yaab kale waxaa kamid ah haysu waxa waajib ku ah intuu shaqada jiray inay wacdo markaana waxa arkaynaa iyadoo wacayso kadibna weydiinayso fitamiinadiisa inuu cunay isla markaas ay naagta la joogto wuxuu sheegay inay saaxiibtiisa soo wacday iyadoo weydiinaysa inuu fitamiinadiisa cunay in kale iyadana waxay ugu jawaabaysaa nin wanaagsan baa tahay naagta si wacan ay u dhaqantaa u malaynaya habeenkii guriga markuu imaado wuxuu bilaabaya inuu baaro taleefanka haysu wuxuuna aad ugu soo horjeedaa inuu haysu ensu saaxiibo ay noqdaan asigoo doonaya haysu inay xiriirka u jarto ensu waxaan halkan ka ogaanaynaa intuu garaacay inay gabadhan ilmo ka soo dhaceen oo ilmo ka soo halaabay eedan iyada dusha ka saaraybu kuna leeyahay maxay igu sheegi weysay isla habeenkaas wuxuu bilaabaya inuu u libiso si ay ugu qayb galaan dhacda hooyadiis ay ka khudbay rabtay oo TED Talk la dhaho kadibna markii ka qayb galaan hooyadiis ayaa bilaabaysa inay ka sheekayso dhibaatooyinka nimanka qaar ay u geystaan naagahooda hooyadiisna isla dhibkaas ay soo martay maadaama asiga abiis oo sidaas uu geysan jiray dhibaatooyin isku dabeecad ayna ahaayeen waxaan sidoo kale ogaanaynaa haysu maalmaankeeda inay baxday kadibna saldhigga booliiska ay tagtay si ay u dacweyso ninkeeda isla markaasna meeshaas ay ku kulmeen walaashiisa Yang oo sarkaalad booliis ah kadibna markii arrinka ay ogaatay ay ku dhahday haddaba dacwadan waxba kuu soo kordhimayso oo dacwooyinka noocan waxay u badan tahay naagaha inay nimankooda dembi ilhin dush ka saarayaan waxayna ogtahay walaalkeeda inay difaacayso haysuna markaas intay baqdo ay iska soo noqonaysaa waqti xaadirkan waxaan arkaynaa familkii oo raashin wada cunayaan markaas ayaa maamadu waxay arkaysaa dhaawaca haysu gacanteeda ku yaalo haysu ayaan u sheegaysa shil ay gashay inuu kusoo gaaro dhaawacani dabeedna suulida ay waxay ku kulmayaan Yangna markaa waxay u sheegaysaa in mardan booliiska ina aadi dacwana walaalkeed ay ka gudbinin isla markaa haysu iyo ninkeeda guriga soo gaaraan wuxuu bilaabayaa inuu weydiiyo sababtay walaashiisa u xiriirtay markay isku dayday inay been sheegtay ismaarka inay dhahdo isla markaa wuxuu bilaabayaa inuu garaaco waana maalintaas maalinta insu isku dayday inay la kulanto haysu markii albaabka fur diidanay ay soo gashay maadaama koodka guriga ay taqiinay isla markaasna haysu saaxiibteed intay la carartay qolka maqaasiinka ay gelisay iyadoo ka baqaysa ninkeeda inuu CCTV-ga ka arko isla markaasna waxay ka dhadhacsisay in guriga iska tagto laakiin insu sidaa kuma joogsan ay waxay u soo diraysaa message iyadoo ugu sheegayso mar walba inay garabkeeda ahaa doonto waxaan halkan ka ogaanaynaa insu inay ahayd qofkii haysu niyadda u dhisay marka haysu aabaheed u geeriyooday waqti xaadirkan waxaan arkaynaa haysu iska ooynayso kadibna ay tirtirayso message ay u soo dirtay iyadoo markaan qashin soo daadinaysa ayaa diriskeeda arkayso kadibna waxay arkaysaa dhaawacyada ku yaalo waxayna ku xasuumaysaa inay gurigeeda soo gasho laakiin haysu maadaama ay doonayeen inay arrimaheeda hoos qof ogaato way ka diidaysaa gurigeeda inay isaga soo laabanaysaa iyadoo markaa aad wareersan waxay bilaabaysaa farshaxan la yaab leh inay sawirto maalintii xigta ninkeeda Jambiyo ayaa wuxuu u wadayaa haysu galeriga farshaxanka si uu halkaas ugu soo guuleysto dhiil oo ka doonaya Mrs Kim oo ahayd macmiil muhiim u ahaa balse haysu ayaa waxay bilaabaysaa inay cabitaan cabto markaas ayaa ninkeeda Jambiyo intuu u maadayo wuxuu leeyahay haddaba dhiilkan darta haddii uga baabao iska jir arrinkaas ku qoslinaay haysu waxaan halkan ka ogaanaynaa gurigooda markuu cusbaa in haysu buug guuleysta ay samaysay kadibna lagu casuumay goob lagu soo bandhigo buugaagta caalamiga ee Talyaaniga ku taalo laakiin Jambiyo markii uu ogaaday inay naagtiisa aqbashay arrinkaasi intuu qaraacay uu ku qasbay inay ka sasho waqti xaadirkan waxay ku qoslaysaa nolosheeda ninkan sidoo u baabi'iyay Jambiyo maadaama dan weyn uu leeyahay markan wuxuu isku dayaa inuu raali geliyo laakiin haysu aad ayuu cabsan tahay kadibna waxay bilaabaysaa inay ku shactiraysto Miss Kim wax naaqsan ayaa dharbax wajiga u dhufanayso isla markaasna Jambiyo ayaa waday gurigan uu wadayaa waqti xaadirkan haysu inay bahar ku jirto ay dareensan tahay isla markaana waxay bilaabaysaa inay cafis weydiisato si kama ayana ku hordhacaysaa miiskii cuntada saarneed Jambiyona markaan aad ay ugu soo caroonaya arrinkan dhacay ciqaab aad u xun ayuuna marsiinayaa haysu markaan waxay xaqasatay ninkan inuu maalmahan ka dili doono waxay niyeysatay intay gacantiisa ku dhimaneyd iyo gacanteeda in isku disho waana markay insu ka soo gaaraysay haysu markaan insu ayaa waxay ku leedahay sheekadan waxay kaliya waxay ku soo dhamaanaysaa labadan in qof dhimato halka insu ay ugu jawaabayso sababta adigu dhimanaysa maxay tahay marka waa inuu asiga dhintaa haddaba su'aasha meesha taal ayaa ah labadan gabdhood ninka ma ka takhalusi karaan mise ayaga ka takhalusayaa qaybtan halkan ayaynu joogaysaa haddaba asxaabta dhammaan muuqaalka iyo lagta laga hilmaamin haddaa inagu cusub tahana subscribe noo saar oo gambaleelka na furo si qaybaha xiga ula socoto waa inoo qaybta xigta